madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo ayaa gaadhay dalka Itoobiya si ay uga qayb galaan shir madaxeedka Midowga Afrika oo lagu wado inuu beritoole ka furmo magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi Itoobiya. Shir madaxeedka Midowga Afrika ayaa sanadkan lagu lafaguri doonaa sidii xal waara looga heli lahaa dhibaatada haysata qaxootiga iyo barakacayaasha qaaradda Afrika iyo sidii gacan looga geysan lahaa wax ka qabashada dhibaatooyinka noloshooda ku xeeran. madaxweynaha oo hadal jeedin kule ayaa waxa uu diiradda saaraya xal u helidda iyo maareynta qaxootiga iyo barakacayaasha ku dhibaataysan wadamada Afrika, gaar ahaan kuwa Soomaalida ee ku sugan dalalka la jaarka Soomaaliya, isaga oo soo bandhigi doona qorshaha uga degsan qaxootigaasi dowladdiisa. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale shirdoocadyo ama shirar gaar ah la yeelan doona madaxda ka soo qayb gashay shirkani, isagoo kala hadli doona xoojinta xiriirka iyo iskaashiga u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalalka kale ee Afrika, iyo in dowladda federaalka Soomaaliya lagu garab istaago dagaalka ay kula jirto kooxaha iyada ka soo horjeeda. Mas'uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta ku weeraraya safarka madaxweynaha Soomaaliya ee qaybta ka ah wafdigiisa ayaa dhankooda kulamo gaar ah iyaguna la yeelan doona dhigooda dalalka Afrika, iyagoo kala xaajoon doona sare u qaadida wada shaqaynta ay la leeyihiin iyo isweydaarsiga khibradaha. dowladda Soomaaliya ayaa ka mid ah dowladihii qaybta weyn ka qaatay aasaaska ururka Midowga Afrika si loo adkeeyo midnimada iyo iskaashiga wadamada iyo shucuubta Afrika, si wada jir ahna xal loogu raadiyo caqabadaha soo food saara wadamada Afrika iyo shucuubtooda. Abubakar Farxaan Cabdiraxmaan Roble, Abubakar Abka.